culimada iyo waxgaradka deegaanka soo horjoogto ee gobolka Cayn ayaa fariin u diray guud ahaan walaalaha islaamka ee jecel khayrka in laga soo qayb galo masaajidka deegaanka soo horjoogto haatan lagu wada dhisme isla markaana la dhigayo marmar qayb ka mid ah masaajidkaasi uu haatan yahay noocan loona baahan yahay in dhismaha masaajidkan si weyn looga qayb galo. waxaa halkan ka hadlay qaar ka mid ah culimada iyo cuqaasha waxgaradka deegaanka soo horjoogto. inta kala barka waanu jafnay waxaan u guroonay inaanu masaajidka marmar dhigno dadka deegaanka hadaanu nahay arrinka waanu isu xilqaanay laba meelood masaajidka marka loo dhigo meel ahaan baanu diyaarinay meeshii waa diyaar oo waa noo yaala marmarkii oo maartay masaajidka qaybtiisa dambe ayuu noo yaala qaybta dambena awood baan u weynaa waa qaybtaan hadda maartay lagu tukanayo marka dadka islaamka ah waxaanu ka codsanaynaa maartay ama codka iyaga maqlaya ama maartay warka iyagu gaadho inay naga soo caawiyaan lambarkow masaajidka marmarkiisa inay nala dhamaystiraan laba qaybood marka loo dhigo qayb ahaan qarashkeedu wuxuu noqday lacag ilaa $2,000 qaybta kalena inta in leeg ayay u baahan tahay sidoo kale masaajidku male minaarad male oo ah waxyaabaha masaajidada ay u baahan yihiin sidoo kale masaajidku deyr male oo waxa noogu oodan laama yar yar oo xoday ah oo ariga iyo dameeraha iyo geela aan midna naga celinin sidoo kale qolkii loo dhigi jiray soolarada iyo waxyaabaha masaajidka agabkiisa masaajidku male marka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa in laga soo caawiyo nabigeenu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamkii markuu dhinto camalkiisu uu go'ayaa ilaa 3 mooyeen saddexda waxaa kamid ah buu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku inuu ka tago sadaqa jaariya oo isagoo geeriyooday kadib sadaqadii ay socoto inuu ka tago qof wanaagsan oo isagoo geeriyooday kadib u soo duceeya sidoo kale amal inuu ka tago cilmi isaga dabadii lagu intifaaco waxa kale oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka masaajid dhigta gogol yar gogoshaasi inta masaajidka ay taalo khayrkii uu soconaya nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qofkii masaajidka marmarka dhigto waxaad ogaataa marmarkaasi ama hal qarni ha yaalo ama muddo ka badan ha yaalo khayrkii uu ku soconaya tuuba ka tirsan gobolka Cayn masaajidka gudihiisa baan taaganahay xafladda waxaan u qabanaa munaasabadatan baahiyaha masaajidka gudihiisa wada aragtaan marmarka baanu dhignay dhagax waa kala badh inta kale waxaan u weynay awood marka dadka taneeya danaha diinta islaamka masaajidka maxadiyada milcaamadaha waxaanu ka codsanaynaa inay naga soo caawiyaan waxa noo hadhay gaar ahaan inaad naga soo caawisaan wixii aanu kicin kari weynay ee lagu kabayo diinta islaamka ama masaajidada iyo maxadada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillahir rahmaanir halkani waa masaajidkii soo joogto waana waa la garanayaa gobolka Cayn bay ka tirsan tahay oo ka xigta waqooyi masaajidkeeda waxaa dhistay dadweyne waanu ku guuleysanay inaanu dhisno dadna caawiyana waa jiraadaan deegaanka ahayn imikana waxaanu gacanta ku haynay muddo marmar baanu dhignay marmarkii uu kala qaaran yahay laba qaybood weeye qayb qabiya awoodayadii intii hore soo dhaafooday aanu dhignay intii dambana waad aragtaan waa daawanaysan mushamayadaas yaala waxaan u baahanay walaalaha muslimiinta ah ee jecel inay khayraadka baxsadaan masaajidada iyo macbadaha gashadaan inay soo caawiyaan masaajidka soo qabiya tiraan waxa safar waa uqaashi deegaanka waa odayaashii deegaanka waxay idinka codsanayaan oo si mugla idinka codsanayaan inay masaajidka soo caawisaan hadaatiin muslimiinta walaalaha ay aanu nahay muslimiinta ee gobolka Cayn gaar ahaan waxaan u soo codsanayaa sahra diiriya gamaadid masaajidka waa qabiyo waa sida aad aragto walaal ninka kula hadlayna waa aqal maxamed cabdi fadlan waxaan ka codsanaynaa annaga iyo deegaankii odayaashii cuqaashuba inaad masaajidka inta dhiman soo dhamaystirto waa dhamaystiri kartaa waqti iyo jidla hadaad siiso waa dhamaystiri kartaa ilaahayna ha ku fududeeyo jazakallahu khayr. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.